سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada daawadayaal qaybtii saddexaad ee taxanihii taariikhda xabiibkeena Muhammad calayhi salaatu wasalaam. qaybtii hore waxay nagu joogtay hordhaca dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam, waxaana inoo maraysay markii nabiga awowgii u diray Cabdillaahi oo ah nabiga aabihii Shaam howlo ganacsi awgeed, dabadeed kusoo noqoshadiisii Shaam uu ku dhintay Madiina. qaybta saddexaad waxay ka bilaamaysaa dhalashadii nabiga calayhi salaatu wasalaam. nabigu wuxuu ku dhashay Maka subaxnimo Isniin ah 9kii Rabiicul Awwal ama 12kii Rabiicul Awwal sanadkii Maroodiga. taariikhda hore ee ah 9ka Rabiicul Awwal ayaa sax, balse 12ka Rabiicul Awwal ayaa caan ah, waxaana ay waafaqsan tahay 22 Abriil 571 miilaadiga. nabiga umulsadiisi waxay ahayd Shifaa bintu Camri, saxaabiga Cabdiraxmaan ibn Cawf, hooyadii Allah ka raali ahaaday. markii ay umushay nabiga hooyadii waxaa ka soo baxay nuur kaasoo iftiimeeyay guryihii Shaam. nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadii fariin ayay u dirtay awowgii iyadoo u bushaaraynaysa dhalashadiisa. Cabdimudalib ayaa yimid isagoo u bushaaraysanaya oo faraxsan, waana uu qaaday isagoo oo la galay Kacbada. Ilaah ayuu mahadnaqay waana u duceeyay. Maxamed ayuuna ku magacaabay isagoo rajaynaya in la mahadiyo. waa u waqlalay waana uu guday maalintii toddobaad. dadkana cunto ayuu siiyey sida ay carab samayn jirtay dhalashadiisa daraaddeed. nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa xanaanayn jirtay Ummu Ayman oo ahayd adoontii nabiga calayhi salaatu wasalaam aabihii. waxa ay nooleed muddadii nabiga dacwadda waday ilaa dhimashadiisii. dabadeed waxay dhimatay nabiga calayhi salaatu wasalaam dabadii 5 bilood ama 6 bilood. naas nuujintii nabiga calayhi salaatu wasalaam, qofkii ugu horreeyay ee nabiga calayhi salaatu wasalaam naaska nuujisa hooyadii dabadeed waxay ahayd Thuwayba, adoontii Abilahab. nabiga adeerkii calayhi salaatu wasalaam caanihii inankeeda oo la odhan jiray Masruux. nabiga calayhi salaatu wasalaam hortiile waxay nuujisay Xamsa ibnu Cabdimudalib oo ahaa isaguna nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii. sidoo kale nabiga dabadii sallallahu calayhi wasallam waxay nuujisay Abusalama Cabdu Asad al-Makhzumi. dhammaantoodna waxay ku walaaloobeen naas nuujinta. Abilahab waxa uu xoreeyay adoontiisii farxadda dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam daraaddeed, balse Abilahab oo ahaa nabiga adeerkii waxuu noqday cadowgii ugu darnaa uguna qalafsanaa ee nabiga xilligii uu istaagay dacwada islaamka faafinteeda. qisadii naas nuujinta nabiga ee Bani Sacd, dhaqanka iyo caadada carab waxaa ka mid ahaa in marka ilmaha naaska la nuujiyo muddo 2 sano ah la geeyo baadiyaha, iyada oo looga dan leeyahay dhowr qodob oo muhiim ah oo kala ah in laga fogeeyo ilmaha inta uu yar yahay xanuunada faafa ee ka dhasha magaalada, in ilmuhu soo noqdo mid ku soo adkaada baadiyaha oo maskaxda iyo jirkuba u soo dhismaan, iyo in ay sugaan oo ilaaliyaan luqadii asalka ahayd ee carab inta ay ku jiraan gosha. ilaahay ayaa qadaray inay timaado qolo reer Bani Sacd, Bani Bakar, Bani Hawsaan ah, iyaga oo raadinaya cid ay naas nuujiyaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa loo soo bandhigay inay qaataan, balse waa ay diideen dhammaantood iyaga oo ku diiday agoonnimadiisa. dabadeed Xaliima bintu Abi Du'ayb ayaa ku soo hadhay meeshii iyada oo aan helin cid ay qaadato. nabiga ayay qaadatay waana ay ku nasiibsatay nasiibkaas oo ay majeerteen dadkii kale. barakadii gashay qoyskii nabiga naas nuujinta u qaatay waxaa ka mid ahayd baraalihii iyo barwaaqadii ay la kulmeen qoyskii Xaliimo naas nuujinta nabiga calayhi salaatu wasalaam, kuwaas oo ku nasiibsaday. Xaliima markii ay timid Maka waxaa lagu jiray xilli abaar ah oo weliba daran. waxay wadatay dameer dhadig oo gaabanaysa taagdarri iyo caatonimo daraaddeed. sidoo kale waxay wadatay hal magaan ah oo aan lagu ogeyn dhibic caano ah. waxaa kaloo ay wadatay ilmo yar oo ooyaya habeenka oo dhan, qaylinaya gaasho daraaddeed, ma seexan jirin, waalidkiisna hurdo wuu u diiday. dabadeed Xaliimo ayaa nabiga siisay naaskii. waxa uu ka helay caano uu cabay ilaa uu oggolaaday. ilmaheedana waa ay siisay si la mid ah, isna waa uu ka dhargay. dabadeed labadoodiiba waa seexdeen. ninkeedii ayaa u kacay hashii, waxaana uu arkay iyadoo caano buuxda. dabadeed waa uu ka lisay waana ay ka cabeen, iyagoo ka dhargay. habeenkana waa ay seexdeen. markay u soo baxeen ay ku noqdeen baadiyaha Bani Sacd, Xaliima ayaa fuushay dameertii nabigan ayaana qaadatay. haddaba mucjisada dhacday ayaa ahayd in dameertii ka dheeraysay dhammaan safarkii oo cid gaadhan la waayey. goortii ay kusoo guryo noqdeen deegaankoodii, kaasoo ahaa dhulka ugu darnaa xagga abaarta dhulka ilaahay abuurtay, waxay xoolahoodu soo noqon jireen iyaga oo dharagsan, kelyuhuna buuxsameen cunto daraaddeed, candhaduna buuxday caano daraaddeed. waa ay ka maali jireen oo cabbi jireen caano dadka la degaankahi aanay hal dhibic la mid ahayn. ilaahay ayaana ku mahadiyeen barakada iyo baraaraha rabbi ku manaystay, kuna gooni yeelay iyaga oo qura. waa ay dhammaystirantay muddadii nabiga calayhi salaatu wasalaam naaska la siinayay. dabadeedna waa ay ka joojisay Xaliimo, kaas oo nabiga calayhi salaatu wasalaam noqday mid adkaaday oo xoogaystay muddadaas. sida caadad ahayd Xaliima waxay ahayd mid nabiga calayhi salaatu wasalaam u keentay reerkooda 6 biloodba mar, dabadeedna ka soo celin jirtay. haddaba markii ay dhammaystirantay muddadii naas nuujintu, hooyadii ayuu timid Xaliimo waxaana ay ku dadaashay inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam la sii joogo in muddo ah. markay aragtay barakada iyo barwaaqada ay ka helayso haddii uu la sii joogo, dabadeed nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadii ayay Xaliimo weydiisatay inuu nabigu la sii joogo si uu u sii adkaado. sidoo kale waxay u sheegtay inay kala cabsoonayso duumada ka jirta Maka. nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadii arrinkaa way ogolaatay, iyada oo raalli ku noqotay. way la soo noqotay Xaliimo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyada oo faraxsan. 2 sano ayuuna la sii joogay nabigu calayhi salaatu wasalaam. intaa dabadeed dhacdo ugub ah nabiga ayaa ku dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam. dhacdadaasoo kaliftay Xaliimo in ay u celiso hooyadii. dhacdadii laabta la jeexay nabiga calayhi salaatu wasalaam. Anas ibn Malik rabbi raallaha ka noqday waxa uu yidhi rasuulka sallallahu calayhi wasallam isagoo la ciyaaray caruur
waxa u yimid malakul jibriil wuu qabtay wuuna jiifiyey waxa uu dilaaciyey laabtiisa waxaanuu ka soo saaray wadnihiisa dabadeed waxa uu ka saaray wadnihiisa xinjir dhiig ah waxaana uu ku yidhi kaas waa qaybta shaydaanka intaa dabadeed waxa uu ku maydhay disti dahab ka samaysan oo ay ku jiraan biyaha samsamku dabadeedna inta uu tolay ayuu ku celiyey meeshiisii dhacdadaasi markii ay dhacday carruurtii waa ay soo yaaceen waxaana u yimaadeen xalimo oo ku dhaheen maxamed calayhi salaatu wasalaam waa la dilay waa ay u yimaadeen isagoo midabkiisu isbedelay ilaa waa qof qalin lagu sameeyey anas ayaa yidhi waxaan ahaa mid arkay raadka tolmaha laabta nabiga calayhi salaatu wasalaam ku yaalay dhimashada hooyadii calayhi salaatu wasalaam dhacdadii laabta la jeexay dabadeed nabiga calayhi salaatu wasalaam waa loo soo celiyey hooyadii isagoo oo la joogay hooyadii iyo qoyskiisa muddo 2 sano ah intaa dabadeed hooyadii waxay u safartay Madiina halkaas ay ku yaaleen qabrigii aabihii iyo awowgii abtiyaashii reer Bani Cadiy ibn Najaar hooyadii waxay la socday nabiga calayhi salaatu wasalaam qudhiisa awowgii Cabdimudalib iyo shaaqayadeedii Ayman halkaa waxay ku nagatay muddo bil ah dabadeed waa ay noqotay iyada oo wadada ku sugan xanuun ayaa helay waana ku darnaaday ilaa ay ku dhimatay meel la yidhi Abwa Maka iyo Madiina u dhaxaysa halkaas ayana lagu aasay nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadii Aamina bintu Wahab kafaalaqaadkii dhimashadii awowgii Cabdimudalib nabiga waxa la soo noqday awowgii Cabdimudalib oo Maka kula soo noqday isagoo oo dareemaya murugo iyo tiraanyo qalbiga taabatay oo ka hadashay dhimashada hooyadii Cabdimudalib nabiga calayhi salaatu wasalaam waa u dabacsanaaday taas oo aanu sidaas oo kale ugu dabcin cid la mid ah oo nabadiisa ah sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam awowgii waxa uu ahaa mid dareejeeyo oo weyneeya carruurtiisana waa ku hormarin jiray waana u ixtiraami jiray ixtiraam halka ugu sareysa Cabdimudalib nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu fuliisan jiray googasha gaarka ah welina halkaa ma uu fuliisin cid aan isaga ahayn nabiga calayhi salaatu wasalaam awowgii dhabarka ayuu salaaxi jiray wuuna ka farxi jiray waxyaabaha uu samaynayo sidoo kale Cabdimudalib waxa uu rumaysnaa in arrin weyni ka soo socda wiilkan yar waa Maxamed calayhi salaatu wasalaam mustaqbalka balse nabiga awowgii Cabdimudalib isaguna waa uu dhintay 2 sano dabadeed dhimashadii hooyadii isagoo ah 8 sano 2 bilood iyo 10 habeen kafaalaqaadkii adeerkii Abu Talib kadib dhimashadii nabiga calayhi salaatu wasalaam awowgii Cabdimudalib korintiisii kobcintiisii waxa la wareegay adeerkii Abu Talib oo ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam aabihii walaalkii Abu Talib nabiga waxa uu gaar yeelay naxariis iyo kalgacayl badan nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii maal badan ma uu haysan inta uu la wareegay kafaalaqaadkii nabiga Allah ayaa u barakeeyey xoolihiisa ilaa ay cunto kaliya ku filaatay dhammaan qoyskiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid tusaale loogu soo qaato qanaacada iyo dulqaadka waxaana ku kaftoomi jiray wixii Ilaahay u qoro halkaas ay inagu joogtay qaybta 3aad ee taxanaha taariikhda nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waa inoo mar kale iyo qaybaha dambe